waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo habeen iyo maalin u taagan difaaca diintooda, dalkooda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dhammaan. Waxaan maalmo la soo joogay jiidda hore ee dagaalka, aniga oo soo arkay sida ay ku nool yihiin iyo dadaalka ay wadaan intaba, ayagoo sooman, taagan cadceedda iyo ciridda, naftoodana u huray dalkeenna sidii uu heli lahay mustaqbal lagu naaloon karo. Waxaad tihiin geesiyaal mujaahidiin ah, kuwii naga baxayna waa shuhado ilaahay agtiisa ku karaamaysan, annaguna dhammaanteen waan u ducaynaynaa insha allah. Walaalayaal, dagaalka aan kula jirno khawaarijta ma aha dagaal sokeeye iyo xukun iyo siyaasad la isku haysto, ee waa dagaal ku salaysan ilaalinta jiritaanka diinta, karaamada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. waxaa iga go'an inaan ku hogaamiyo dowladdeena iyo shacabkeenna sidii ay isaga xoreyn lahaayeen cadowga khawaarijta ee ku soo duulay ee gumaysanayay ku dhowaad 20 sano ee lasoo dhaafay. waxaa naga go'an inaan u hurno wax kasta oo qiimi ku fadhiya si loo gaaro hadafka xurriyadda buuxda ee dalka iyo dadka. walaalayaal, cadowga Soomaaliyeed wuxuu marayaa rafashadii ugu dambeysay. neefku markii ay naftu ka sii baxayso ayuu ugu rafasho badan yahay. waa hubaal in ay maanta marxaladaas marayaan khawaarijtu. wax kasta oo dhaca nama cabsi gelinayso tallaabooyinka naflacaariga ah ee ay samaynayaan khawaarijta maanta. suurtagal ma aha inaan aamino in karaamo, madaxtinimo, sharaf aan yeelanayo xitaa anoo madaxweynihii ah inta qof argagixiso ah uu khatar ku yahay jiritaankeenna, sharafteenna, midnimadeenna iyo dalkeenna midnimadiisa intaba. waa ka soo adkaanay, waana ka adkaanaynaa annagoo Rabbi kaashanayno, kuna kalsoon ciidamadeenna qalabka sida ee geesiyaasha ah, una mahad celinayna taageerada ciidamada deegaanka ee macuusleyda iyo taageerada hagar la'aanta ah ee beesha caalamka.